waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawa doontaan waxaa kamid ah isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha oo maanta lagu wado in la soo gabagabeeyo iyo shuruud cusub oo la hordhigay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya amniga doorashada madaxweynaha oo gabi ahaanba lagu wareejiyay ciidamada ADMIS iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo shir degdeg ah la qaatay madaxda iyo taliyaasha ciidamadaasi iyo qaybta dambe warkeen oo aad ku daawa doontaan madaxda dowlad goboleedyada oo wada tashiyo la bilaabeen xildhibaanada labada aqal qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddana nagu cusubtaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada weelo wararkii warbixinada 24 gazacaan u baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii sheer gareeya si uu gaar asxaabadan laagtiinana waa inoo dhiirigelin daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in la soo gabagabeeyo dhanka kalena shuruud cusub ayaa la hordhigay musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya xarunta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya taas oo soo bilaabatay maalin ka hor isdiiwaangelinta ayaana ku eeg 4 galabnimo ee xilliga magaalada Muqdisho inta badan musharaxiinta ayaa isdiiwaangeliyeen tirada isku soo sharaxday xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa kor u dhaafaysa 30 mid walba oo kamid ah musharaxiintaas ayaana shubay lacag dhan $40,000 sida uu yahay qorshaha jadwalka 11 iyo 12 oo kala ah maalinta berita iyo maalinta xigta ee Khamiista ayaa lagu wadaa in la dhageysto khudbadaha musharaxiinta taas oo si toos ah uga qabsoomaysa teendada Avazione ee xindhaabka Xalane dhanka kale qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu shaaciyay dalab cusub oo loo diray musharaxiinta isdiiwaangeliyeen ee u tartamaysa xilka madaxweynaha kaas oo ah in musharax kasta laga doonayo inuu isla maanta soo gudbiyo barnaamijkiisa doorasho oo daabacan guddiga doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ku wargelinayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in musharax kasta guddiga u soo gudbiyo 400 oo nuqul oo barnaamijkiisa doorasho oo daabacan iyo 1 nuqul oo elektarooniga ama PDF ah oo ah hadaljeedinta musharaxa ayaa lagu yiri qoraalkan si kastaba si weyn ayaa isha loogu hayaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo qorshu yahay in la qabto maalinta Axadda ee bilowga toddobaadkan soo socda dhanka kalena amniga doorashada madaxweynaha ayaa gabi ahaanba lagu wareejiyay ciidamada ADMIS gudoomiyaha golaha shacabkuna shir degdeg ah ayuu la qaatay madaxda iyo taliyaasha ciidamadaas guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee labada aqal baarlamaanka dalka ka kooban ayaa soo saareen habraaca amniga doorashada madaxweynaha cusub oo ka dhacaysa xarunta Avazione ee xindhaabka Xalane guddiga ayaa qoraalkan oo ka koobnaa 3 bog ku faahfaahiyeen qaabka loo sugayo amniga doorashada oo gabi ahaanba lagu wareejiyay ciidamada ADMIS ee midowga Afrika waxaana kaliya hoolka ka shaqeynaya 22 askari oo boolis ah musharaxiinta madaxweynaha ayaa kaliya loo ogol yahay hal qof oo codka u tiriya halka musharaxiinta madaxweynayaashii horena loo ogol yahay 2 qof madaxweynaha xilka baneynaya ayaa loo ogol yahay in uu hoolka la galo 3 qof amniga doorashada oo ahayd arinta ugu muhiimsan waxaa dhammaan lagu wareejiyay ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS haddaba tallaabadaasi markii ay qaadeen guddiga doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe wuxuu kulan degdeg ah ugu yeeray madaxda iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ADMIS kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika taliyaha guud ee ciidamada ADMIS ee Soomaaliya iyo taliyaha guud ee qaybta sector 1 ee ciidanka ADMIS waxaana kulankan looga hadlay xaqiijinta amniga doorashada madaxweynaha oo lagu wado inay dhacdo 15 bishan ee 2022 iyadoo amniga gabi ahaanba lagu wareejiyay ciidanka ADMIS gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaana ADMIS ku booriyay inay gutaan waajibaadkooda shaqo iyo mas'uuliyadda ka saaran ilaalinta amniga doorashada dalka
kulankan ayaa imaanaya xili sidoo kale ciidamada ADMIS kol hore lagu wareejiyay amnigii doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya taa oo ka dhaceysay xarunta Afasione. arrimaha la xiriiray in amniga lagu wareejiyay ciidanka ADMIS ayaana waqtigaasi yimid kadib markii isqaqabsi uu soo kala dhaxgalay taliska ciidanka booliska Soomaaliya iyo hogaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha oo waqtigaas horseed u ahaayeen doorashooyinka Soomaaliya. hadda ciidanka booliska Soomaaliya 22 askari oo kamid ah oo kaliya ayaa loo ogol yahay in ay la shaqeeyaan qaybta borotokoolka ee ka dhex shaqeynaya gudaha teendada Afasione ay xubnaha kala duwan ku sugan yihiin. laakiin ciidamada Soomaalida ayaa inta badan sugaya amniga guud ee magaalada Muqdisho oo la filayo in dhaqdhaqaaqeeda la yareeyo si ammaanka guud ee magaalada loo sugo isla markaasna doorashadu ugu dhacdo si habsami leh. وهاجا داود يلي مكانه وحنو eegaynaa madaxda dowlad goboleedyaduna waxa ay wada tashiyo la bilaabeen xildhibaanada labada aqal. magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo ay ku wada sugan yihiin madaxda dowlad goboleedyada ayaa si weyn waxa uga socda kulamo salka ku haya doorashada madaxtinimada dalka. hogaamiyaasha maamulada ayaa bilaabeen kulamo ay la qaadanayaan xildhibaanada kuraasta ka soo helay maamulada ay ka taliyaan. madaxweynaha Hirshabelle Cali Goodlaw Xuseen ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyadoo la iska xog wareystay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka oo maray heer gabagaba. madaxweynaha ayaana xildhibaanada labada aqal kula dardaarmay inay wadajir noqdaan oo ay ka shaqeeyaan danaha iyo horumarka deegaanada Hirshabelle. dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa Muqdisho kulan kula qaatay xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. kulankan oo ah mid wadajir ah waxaa diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo sidii xildhibaanada ka soo baxay Jubbaland uga qayb qaadan lahaayeen jiheynta doorashooyinka gabagabada maraya. sidoo kale madaxda kale ee kala ah Cabdicasiis Laftagaren koonfur galbeed Axmed Qoorqoor Galmudug iyo Dani oo la fahantiisa musharaxa Puntland ah ayaa la filayaa in siyaabooyin kala duwan ula kulmaan xildhibaanada ka soo galay deegaan dowlad goboleedyada ay madaxda ka yihiin. inta badan kulamadan ayaana salka ku haya sidii madaxda dowlad goboleedyadu ay xildhibaanadu uga dhaadhicin lahaayeen inay codadkooda siiyaan shakhsiyaadka ay iyagu arkaan kan mudan inuu hogaamin karo dalka Soomaaliya. laakiin waxaa inta badan adag in xildhibaanada lagu maamulo fikradiisa codbixinta waxa ayna wax walba isbedelaan marka la tago hoolka doorashada oo markaas xildhibaanadu codadkoodu siiyaan shakhsiyaadka iyagu u arkaan qofka mudan taa oo keentay in halbacaad lagu lisay ay noqoto wixii ay muddo soo dhoodhoobayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka. dhankooda xubnaha isku soo taagay xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa wadaan kala jiidashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya taas oo meeshaba ka saareysa isku haynta xildhibaanada oo ay inta badan juhdi badan ku bixiyaan madaxda dowlad goboleedyada. marka la xog wareysto xaaladda doorasho iyo musharaxiinta waxaa ku soo baxaysa in musharax waliba uu ku tashanayo codad kor u dhaafayo 30 taa oo muujinaysa in adag tahay in shakhsi gaar ah uu xildhibaano ku xisaabtami karo. haddaba si gaar ah ayaa isha loogu hayaa wax waliba oo la xiriira doorashada Soomaaliya oo waqti waliba isbedel cusub uu ka imaan karo. waxaana si gaar ah isha loogu hayaa shakhsiga ay xildhibaanada labada aqal baarlamaanka Soomaaliya u xushaan qofka hogaamin kara dalka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawade hadda nagu cusubtaa nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela wararka iyo warbixinada 24 saacan u baahino. aragtidiinana halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim daawadayaal waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka oo arka janalka dalka TV Media.